dawlad kasta oo ku soo shaqeysa dictatoriye masiirkoodu waxay ahayd baaba iyo burbur taariikh xunayna ka tagtay teen shalay ahaadaan ugu horeysay 30 sano dagaal sukayahay nooga tagtay oo wali xalilana dadka naga xaq u dirirka kuma lihin lid daarood waxaanu lid ku nahay oo la diriraynaa shacabka maxamed siyaad bare iyo inta la safan oo xabadda la soo ridaysa kuwaas weeye kuwa la diriraynaa macquul mata hadda in haddana dib aan u bilaawno sheekada ku celin mararka qaar waxa islaada Soomaalidu nin kasta wuxuu rabaa inuu maxamed siyaad barano war aqli ma aha maxamed siyaad bare hadda maanta hadii la soo celiyo wuxuu ku khasbeen soo u fikir jiray ka duwan inuu fikir oo ku khasbeen marka aqliyadaas waxa loo baahan in la iska dhigo dadkaanu waa dad sharci waa dad dawladnimo waa dad raba nidaam iyo kala dambeyn iyo ixtiraam taas loo baahan in lagu shaqeeyo dawladuna waa cid ugu horeyso oo laga rabo in sharciga ixtiraamto marka runtii arinta waxay nagu bixinaysaa inaan u istaagno oo foojignaano tilaab kasto la qaaday dalkan dawladnimadiisa waxa loo soo maray duruuf adag dhibaatooyin fara badan dad badan oo dhintay kuwa badan oo dhaawacmay maanta raga waxay rabaan ka sameeyaan xataa natiijo kama fikiraan in laga xoreeyo afweyn u baahan waayo maskaxdu ka cunay in laga xoreeyo ayay u baahan yihiin oo ummadii dib loogu soo dabaalo dalkan dadka qoriyo waa haystaan wali xanuunka waa hayaan cadaalad darada waa dul saaran tahay albaabadu waa xiran yihiin jid la mari kara ma jiro hadaa qofka ceejiso maxaa ka iimaanayso inaas weydiisana oo aqal leh oo walaaltinimadii midnimadii Soomaalinimadii la isku keeno Soomaaliya حق بانو دريرين إنه حقوقيسا dadku helaan in dalkanaga nabad ka dhacdo in cadaalad ka dhacdo in markaasna horumar ka dhaco in dadweynaha awoodda gacanta dib loogu geliyo oo dadweynuhu u taliyaan oo wixii dadweynuhu doonayaan yeelaan sidaas ay hadafkanagu arinta madaxweynuhu ka dhawaajiyay oo ah in la toojar gareeyo dadka ganacsatada مثلا shirkadaha diyaaradaha iyo civil aviation waxa rabaa inay bareeraan oo ay dhahaan go'aankaas annaga soo saarnay siyaasi waay لكن أنا أدركت ويل المساكين وصوشة قتيجة وركض وصوشة قتيجة فنصيب ده هذانا ما ده حديقار كمدة يهنددان ويدان تلابا على قاعدة ومحات تلابا قاعدة سوا هذا دبيله ومن بردم بالله يساعدون سن ومدرسكم انتهي ومدرس الصومالي لسكو كيرو ومدرس الصومالي على الفيوراتو ومدرس الصومالي واسكو نغن واسكو هيدو واسكو ماركتي هذه لكوريا تاريخ واسكو لغة دتكاس وإني لولا التيا مدشان waxay u taagantahay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminayo maalin kasta dulumkaas iyo mid lamid ah xafiisyada dawladda ka dhacaan maalin kasta Soomaaliya maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallahi thumma wallahi diyaaruna waa qaadana meesha ugu sareysan gaarsiinayna waxa lagu walaatayn karaana cadawga doonaya inuu marinka fiican ka hadalsho in laga adkaada magaaladan موريانا هي سجلت الصومة ولا لا دقال موال بحش مسابنتي إثيوبيانا سوق له محل وسمي ولا بحي الشباب قبصدي ما كحوق بديهن أنت كم حوق نولدكم هاي الله درينا يجعل كمحمد سياد بره إيه أنت الله صفن أو حبض الله سوري دايسا هو أبيه هو الله درينا والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هذا اسم جورجين وابحنينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر